waxaa jira qalad ay youtuberadii ku dhacaan markay bilaabayaan youtube-ka waxaana weeye in free-settingska muhiimka ah fadlan ha ku dhicin khaladkan haddaad tahay youtuber cusub waxaan ku hayaa 9 settings oo muhiim tahay inaad furato si aad u hesho views badan iyo security adag iyo sidoo u noqon lahaa youtube channel-kaagu mid setup ah oo diyaarsan si aad muuqaal ugu soo upload garayso 2 usbuuc ka hor ayaan soo dhignay codayn waxaana codeeyay 300 oo qof boqolkiiba 77 waxay u codeeyeen youtube settings okay balhan bilowno waxaad soo furo doontaa Google Chrome-ka kadib waxaad ku qori doontaa YouTube Studio hadduu application-ka YouTube Studio kugu jiro waa iska saari doontaa oo Chrome-ka ayaad ka dhaxgeli doontaa kadib waxaad ku dhufan doontaa linka ugu horeeya waxooga yar ayaad sugi doontaa waxaana uu ku keenayaa halkan kadib waxaad sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay settings waxaanad ka sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay channel waxaadna ka sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay future eligibility waxaana ku soo bixi doonaa standard future intermediate future iyo advanced future standard future waxa uu ku furmayaa marka aad channel-kaaga furato intermediate future waa ka ugu muhiimsan markaad furato waxa uu ku siin doonaa futures-ka kala ah inaad soo gelin doonto muuqaal ka badan 15 minute iyo inaad soo saaran doonto custom thumbnail iyo inaad soo geli karto live stream haddaba saad u furato waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay verified phone number waxaana uu ku keeni doonaa dhinacan waxaad ka sii dooran doontaa waddanka aad joogto waxaadna gelin doontaa numberkaaga kadib waxa uu kuu soo diri doonaa koodhkaana waxaad gelin doontaa halkan waxaana uu kuu soo saari doonaa phone is verified sidaa waxaan ku furannay intermediate future advanced future waxa uu kuu furmi doonaa markaad muuqaal soo upload garayso settingskeena xiga waxaad ku dhufan doontaa channel sii dooro basic info waxa kuu soo bixi doonaa country of residence iyo keywords country of residence waxa weeye dalka aad ku leedahay jinsiyad ama aad si sharci ah u degan tahay halkaas oo leh YouTube Partner Program markaad deegaanada Soomaalidu degto uma furno YouTube Partner Program marka waxaad dooran doontaa wadamada waaweyn sida USA, UK iyo Jarmalka haddana waxaan dooranayaa UK keywords kuwa erayo ama weero ay dadku ku qoraan search-ka si u helaan waxay raadinayaan waxaana ku qori doontaa channel-kaaga magaciisa tusaale ahaan Somali editor ama Somali editor settingskeena xiga waxaad ku dhufan doontaa channel waxaad sii dooran doontaa advanced settings waxaana halkan kaaga soo baxay optionada kala ah made for kids iyo not made for kids haddaba keebaa dooranaysaa haddaan doorto made for kids muuqaalkaaga dadka uu bartilmaameedsanayo waxa ay noqonaysaa carruurta yaryar yacni carruurta ka yar 13 jir tusaale ahaan Somali editor videos ma waxay bartilmaameedsanayaan carruurta mise dadka waaweyn may carruurta ma bartilmaameedsanayaan ee waxay bartilmaameedsanayaan dadka waaweyn waayo muuqaalada uma sameeynin carruurta yaryar muuqaalada carruurta loogu talagalay waxaa ka mid ah Cocomelon iyo Tom and Jerry saadaradeed haddaad ka hadlayso muuqaalada lagu madadaaliyo carruurta waxaad dooran doontaa made for kids haddaad ugu talagashay dadka waaweyn waxaad dooran doontaa not made for kids intaayna isla fahanaya rajaynaya akhyaaray balhan ku soconno settingskeena xiga waxaan aragnay inay youtuberadu soo dhigaan description-ka social media-hooga hadda si aad u soo dhigi lahayd adna waxaad iman doontaa channel waxaad ka sii dooran doontaa upload defaults waxaana kuu soo baxaya title description visibility iyo tags waxaad dooran doontaa description-ka waxaana ku qori doontaa introduction ku saabsan channel-kaaga waxaad raacin doontaa social media-haaga iyo hashtags tagskana waxaad ku qori doontaa channel-kaaga magaciisa intaa marka aad samayso waxaad ku dhufan doontaa advanced settings waxaana halkan kaaga muuqan doonaa allow automatic chapters and moments chaptersku waa inuu muuqaalada u qaybsamaa qaybo oo uu qofka daawaduhu daawan karo meesha uu ka rabo muuqaalkaaga haddaad on ka dhigato YouTube-ka si automatic ayaa uu u sameynayaa laakiin waxa badan khaladaadkiisa marka waxaan kugu talin lahaa inaad ka dhigato off settingskeena xiga waxaad dooran doontaa channel customization waxaana halkan kaaga muuqdaa add channel tailor tusaale ahaan waxaan soo furan doonaa YouTube-keena saan iskula aragno channel tailor waxaad iman doontaa channel home sidaad aragtaan muuqaalka halkan kaaga muuqda waa si aad ugu soo dari lahayd sidaa daraaddeed waxaad ku dhufan doontaa add si aad ugu soo darsato mid ka mid ah muuqaaladaada settingskeena xiga weli waxaan ku guda jirnaa channel customization waxaad ka sii dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay branding waxaad dooran doontaa halkan si aad muuqaaladaada ugu samayso
watermark tusaale ahaan waxay ka soo muuqan doontaa dhinaca midig ee muuqaalkaaga marka aad ku dhufatana waxa uu ku soo saari doonaa buttonka subscribe loogadaada ayaad upload soo odhan doontaa sidaana waxaad ku haysataa watermark settingskeena ugu dambeeya waxa uu channelkaaga ka dhigayaa mid securitygiisu adag yahay oo aan la jabsan karin aad iyo aad ayuuna u muhiim yahay waxaana lagu magacaabaa two-step verification hadduuna kuu furnayn YouTube Studio waxa uu kuu soo diri doonaa notification okay maxaa uu muhiim u yahay inaad samayso two-step verification haddaanad furan two-step verification si fudud ayaa lagu jabsan karaa channelkaaga laakiin hadda uu kuu furan yahay oo la isiraa jabso channelkaaga Google waa uu aqoonsan doonaa waxaana uu kuu soo diri doonaa fariin mobilkaaga saa daraadeed ayay muhiim tahay haddaba saad u furato waxaad ku dhufan doontaa get start waxa uu ku keeni doonaa page-kan waxaadna ka furi doontaa password-ka kuugu xidhan mobilkaaga suu gudaha kuu geliyo marka uu gudihii ku geliyay waxa uu kuu soo saaray two-step verification saad halkan ka aragtaan waxa uu ku leeyahay lambarkaaga geli waxaad dooran doontaa waddankaaga waxaadna gelin doontaa phone numberkaaga hadda waxaan dooran doonaa Soomaaliya oo ah 252 waxaan gelin doonaa lambarkeena si uu inoogu soo diro code waxoogaa yar ayaan sugi doonaa waxaana inoo soo diri doonaa koodhkii verification-ka koodhkii waa inoo soo diray waxaana uu inoo galay halkaana waxaan ku haysanaa two-step verification oo hadhow marka la is yidhaahdo jabso ama la soo galo markaa gmail-kaaga si dhaqso waxa uu kugu soo diri doonaa Google fariin ka odhanaysa taleefanka soo galay ma taleefankaagiiba miyaan u fasaxaa mise uma fasaxo intaas ayuu nooga eegyahay muuqaalkeenu haddaad halkan soo gaadhay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaad u sii sheer garayn doonto asxaabtaada ay wax badan ka faa'iidi doonaan ayaamahan oo idinka maqnaa waa idinka raali gelinayaa marka waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan gaarsiin doontaan meel dheer like iyo subscribe ta ka ilaawina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh